kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan nagala socotaan waa Shabeelle Channel iyo Caasimada Channel oo aynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyay ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad nagu soo biirayso ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaal lacinkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid maanta waxaynu soo qaadan doonaa wararka haatan sida aadka ah loo hadal hayo waxaana ku horeynayaa afhayeenka Xamaas Usaama Xamdaan oo goorsii horeysay waraysi gaar ah siiyay warbaahinta Al Jazeera waxaana uu ka hadlay wada hadalka haatan ka socda caasimada dalkaasi Qatar ee Dooxa la doonayay in heshiis xabad joojin ah looga gaaro xasuuqa ciidamada Yahuudda ay ka wadaan marinka Gaza ee Falastiin. Usaama Xamdaan wuxuu yiri inkastoo Xamaas aysan qayb ka ahayn wada hadalkaasi haddana ilaa xilligan ma jiraan calaamado ama waxyaabo muujinayo in wada hadalkan uu noqon doono mid natiijooyin miro dhal ah markaasi laga soo saari doono. waxaa sidoo kale uu sheegay in ilaa xilligan Israa'iil aanan laga haynin war xaqiiqo ah oo markaasi la xiriira in ay diyaar u yihiin in heshiis xabad joojin ah iyo mid maxaabiis bedelasho ah in ay ka gaaraan xasuuqa weli ay ka wadaan marinka Gaza ee Falastiin. Usaama Xamdaan sidoo kale waxa uu yiri Israa'iil waxa weli ay ku adkeysanaysaa in ay markaasi maamusho aaga Philadelphia ee xuduudda Masar iyo sidoo kale Gaza taasi oo uu sheegay in ay ka soo horjeedo dalabaadka ay haatan miiska soo saareen xubnaha hubeysan ee Xamaas ee Gaza ka dagaalamayo. Xamaas waxyaabaha ay dalbanayaan sida afhayeenkooda uu sheegayo waxaa ka mid ah in gabi ahaanba marinka Gaza ee Falastiin ciidamada Yahuudda ay ka baxaan iyo weliba in ciidamada Yahuudda ay weerarada iyo xasuuqa joogtada ah oo ay ka wadaan marinka Gaza ee Falastiin ay markaasi joojiyaan ka hor inta aanan la gaarin wax heshiis ah oo markaasi la xiriira xasuuqan ay Yahuudda ka wadaan Gaza. afhayeenkan waxa uu sidoo kale xaqiijiyay haddii Israa'iil ay markaasi aqbasho heshiis xabad joojin ah oo dalabaadkooda lagu tixgelinayo in Xamaas ay diyaar u yihiin in wada hadalkan ay ka qayb galaan ayna ka shaqeeyaan sidii heshiis xabad joojin ah oo waaro looga gaari lahaa xasuuqa Gaza. dhanka kale xubnaha hubeysan ee Xisbullah waxa ay maanta markaasi sheegeen in ciidamada militariga Yahuudda ay weerar xoog leh kula eegteen dhulka la haystay ee waqooyi ee Falastiin ee xuduudda Lubnaan iyo Israa'iil. war qoraal ah oo ay soo dhigeen bartooda Telegramka goorsii horeysay waxa ay ku sheegeen in gantaalo halis ah sida gantaalka Burqan oo kale in ciidamo Yahuudi ah oo ku sugnaa saldhigga ciidamada militariga Yahuudda Birkat Risha loo yaqaano in ay la eegteen weeraradaasi ayna halkaasi ku xaqiijiyeen baqtiga Yahuudda iyo dhaawacyadooda. Xisbullah dhanka kale waxa maanta ay soo bandhigeen muuqaal si aad loo hadal hayo waxa ay soo bandhigeen hogag dhulka hoostiisa uga qodan oo laga arki karayo gantaalo xoog leh iyo sidoo kale qalabka laga rido gantaalada ee launcherska ee loo yaqaano. muuqaalkan oo 4 daqiiqo soconaya waxa laga arki karaa xubnaha hubeysan ee Xisbullah oo markaasi gudaha ugu jiro hogagaasi. waxaa sidoo kale goobta ka shidan codka hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah waxa qoraalka ay dul saareen muuqaalkaasi ka mid ah in gantaaladooda ay diyaarsan yihiin ayna ku wajahan yihiin oo ay ku weerari doonaan kuna burburin doonaan xarumaha muhiimka ah ee gudaha Israa'iil. waxaa sidoo kale Xisbullah ay sii raaciyeen digniintan oo ay dhaheen haddii Israa'iil ay weerar ku soo qaadaan Lubnaan oo ay bilaabaan inay beegsadaan oo ay duqeeyaan caasimada Beirut in Xisbullah ay diyaar u yihiin in iyagana gantaaladan halista ah oo dhulka hoostiisa haatan ugu jiro in ay ku weeraraan ayna ku duqeeyaan magaalooyinka muhiimka ah ee Israa'iil sida Haifa iyo Yafa ama Tel Aviv. muuqaalkan ayaa ku soo aadayay xilli xiisad ay ka dhex taagan tahay Xisbullah iyo Israa'iil. Xisbullahna ay haatan ku hanjabayso in weerar argudasho ah ay ku qaadi doonto Israa'iil weerarkaasi oo ah mid ay ugu argudayaan hogaamiyahoodii lagu dilay koonfurta caasimada Beirut ee Fuad Shukur. waxaa sidoo kale Xisbullah ay si cad u sheegeen in xitaa heshiis xabad joojin ah haddii laga gaaro xasuuqa Gaza oo wada hadalka haatan Dooxa ka socdo uu noqdo mid miro dhal ah ama natiijooyin miro dhal ah laga soo saaro in weli weerarkan ay qaadi doonaan oo hogaamiyahooda ay u argudi doonaan. dhanka kale ciidamada militariga Yahuudda waxa ay maanta markaasi gantaalada artilleriga iyo duqeymo ay la eegteen teendooyin dadka shacabka ah ay kula hayeen aaga Al-Mawasi ee koonfurta marinka Gaza ee Falastiin sida warbaahinta Al Jazeera qaybta Carabiga ay markaasi tabisay. weerarkan waxa ku shahiiday ilaa 4 qof oo 3 ka mid ah ay caruur yihiin. Al-Mawasi waxaynu ognahay in marar badan oo hore Israa'iil ay ku amreen shacabka Falastiiniinta in ay u qaxaan oo ay markaasi teendooyin ka samaystaan iyagoona sheegay in halkaasi aysan wax weerar ah ka geysan doonin.
dhanka kale golaha wasiirada dagaalka ee Israa'iil waxa maanta digniin ay ka soo saareen in Iran iyo Hezbollah ay qorsheynayaan in ay dilaan oo ay beegsadaan saraakiisha ugu sareysa ee ciidamada militariga Yahuuda iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee Yahuuda. Waxa sidoo kale golahan ay sheegayaan in Iran iyo Hezbollah ay doonayaan in ay dilaan wasiirada Yahuuda, xubnaha baarlamaanka, saraakiisha haatan ka tirsan militariga iyo kuwii horay uga tirsanaa saraakiisha sirdoonka ee Mossad iyo sidoo kale Yahuuda ku sugan qaybo badan oo ka mid ah dunida dacaladeeda. ciidamada shimbeeda Israa'iil waxa ay leeyihiin si looga hortago qatartaasi iyada ah waxaynu ku jirnaa heegan sare waxaana doonaynaa inaynu ku hortagno weerar kasta oo markaasi Iran iyo Hezbollah ay doonayaan in ay nagu soo qaadaan. digniintan ayaa ku soo aaday xilli haatan Iran iyo kooxaha taageersan ee muqaawamada gobolka ay isku diyaarinayaan weerar culus oo sida ay sheegeen ugu argudi doonaan hogaamiyihii Hamas ee la dilay Sheikh Ismaaciil Haniya iyo sidoo kale Fuad Shukur oo ciidamada Yahuuda ay ku dileen caasimadda Beirut ee dalkaasi Lebanon. dhanka kale Hamas waxa maanta ay ka tacsiyadeen geerida ku timid Falastiiniga xalayto Yahuuda xaq jirka ah ee lagu degaamay dhulka la haysta ee Falastiin ay ku dileen dhulka la haysta ee Daanta Galbeed. waxaana weerarkan Hamas ay ku tilmaameen mid Israa'iil ay ku doonayso in shacabka Falastiiniinta ay ku barakiciso. Hamas waxa ay ka dalbadeen dhammaan shacabka Falastiiniinta ee ku nool gobolada dhulka la haysta ee Daanta Galbeed in caradooda ay muujiyaan ayna ka hortagaan weeraradan argaxiso oo markaasi ay soo qaadayaan xubnaha hubeysan ee Israa'iiliinta lagu degaamay dhulka la haysta ee Falastiin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin sidoo kale waxa ay si weyn u cambaaraysay weerarkan xalayto ay Israa'iiliintan ka geysteen tuulada Jiid ee ka tirsan dhulka la haysta ee Daanta Galbeed iyagoona ku tilmaamay inuu ahaa weerar argaxiso. wasaaraddan waxa sidoo kale ay sheegtay in weerarkan ay qaadayaan kooxahan xaq jirka ah ee Yahuuda in ay la egteen tuuladan oo dhanka bari uga taala caasimadda Qalqaliya. waxa ay dalbanayaan in beesha caalamka ay markaasi cunaqabatayno ay ku soo rogto Israa'iiliintan iyo waliba in laga shaqeeyo sidii maleeshiyaadkan Yahuuda ee weerarada joogtada ah ku haya Falastiiniinta looga hortagi lahaa iyo sidii loo soo maxkamadeyn lahaa. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegtay in wiil Falastiini ah oo 23 sano jir ah oo lagu magacaabo Maxamuud Cabdul Qadar Sacda in xalayto Yahuudan xaq jirka ah weeraradii ay ku qaadeen tuuladan in ay ku dileen halka Falastiini kalena uu si xun ugu dhaawacmay toogasho loogu geystay isla tuuladaasi. in ka badan 100 Yahuudi ah oo hubeysnaa oo qaar markaasi ku hubeysnaa xitaa hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la sheegay in tuuladan ay weerar ku qaadeen isla markaana ay gubeen gawaari badan iyo hanti badan oo ay lahaayeen shacabka Falastiiniinta ee ku nool tuuladaasi. dhanka kale ciidamada militariga Yahuuda waxa ay weli shacabka Falastiiniinta ay ka barakicinayaan xaafadaha qaar ee marinka Gaza ee Falastiin xilli haatan ay sii xoogeysanayaan duqeymaha iyo weerarada ay ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah Gaza. war qoraal ah oo bartooda X ay markaasi soo dhigeen waxa ay ku amreen shacabka Falastiiniinta ah in ay ka baxaan deegaanada dhanka bari ee Deir al-Balaax, Al-Qarara, Al-Mawasi, Al-Jilca iyo sidoo kale An-Nasr iyo xaafadda Xamed oo lagu amray shacabka Falastiiniinta in si degdeg ah ay markaasi uga baxaan. dhanka kale ciidamada militariga Yahuuda maanta shacab Falastiiniin ah oo isugu soo baxay aaga dhismaha Al-Taba ee xaafadda Asaraya ee caasimadda Gaza waxa ay kula egteen duqeymo halkaasi oo 2 qof ay ku shahiideen halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen sida wararka haatan ay tibaaxayaan. ciidamada Yahuuda sidoo kale waxa ay sii kordhiyeen weerarada iyo duqeymaha ay ka wadaan caasimadda Gaza halkaasi oo dad shacab ah ay ku nafwaayeen halka qaar kalena la sheegayo in ay ku barakaceen. tanay subaxnimadii hore ee maanta qaraxyo waaweyn ayaa laga soo sheegay qaybo badan oo ka mid ah caasimadda Khan Yunis waxaana sidoo kale halkaasi ay la beegsadeen gantaaladooda artilleriga ah iyadoona sidoo kale shacabka Falastiiniinta ah guryahoodii mar hore laga soo barakiciyay halkaasi ku suganna laga soo sheegay in saameyn ay markaasi soo gaartay. ciidamada Yahuuda sidoo kale waxa maanta weeraro ay ka geysteen waqooyiga bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza ee Falastiin sida wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa ay markaasi tabisay. weeraradan waxa ka mid ah duqeyn ay ka fuliyeen guri ku yaala xaafadda Daraaj ee caasimadda Gaza halkaasi oo 5 qof ay ku shahiideen halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. waxa weerarkan sidoo kale ka mid ah duqeyn ay ka fuliyeen xaafadda Azwayda ee bartamaha Gaza halkaasi oo 1 qof ku shahiiday. waxa sidoo kale ka mid ah duqeyn ay ka geysteen guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusayraad halkaasi oo 1 qof ku shahiiday. waxa sidoo kale ka mid ah weerar ay ka geysteen bariga
xerada qaxootiga ee Nusayraad halkaasi oo hal qof uu sidoo kale ku shahiiday iyo duqeymo laga soo sheegay guryaha xaafadda Azaytuun ee caasimadda Gaza dhanka bari iyo dhanka galbeed ee caasimadda Rafax iyo sidoo kale guri ku yaala xerada qaxootiga ee Bureej halkaasi oo la sheegay in shacab Falastiiniin ah ay markaasi ku waxyeeloobeen waxaana jira qaar ka mid ah shacabka Falastiiniinta oo weeraradaasi ku shahiiday ilaa xilligan tirada shuhadada Gaza waxa ay ka sara martay 40,000 oo qof inkastoo la aaminsan yahay in tirada ay intaasi ka badan tahay waxaa jira sidoo kale hay'ado caalami ah oo dhowr isbuuc ka hor xitaa sheegay in tirada dhimashada ay ka sara martay 100,000 oo qof iyagoona markaasi sheegay marka la isu geeyo tirada shuhadada iyo tirada dhaawacyada Gaza in ay ka sara martay ilaa 200,000 oo qof oo markaasi ciidamada Yahuudda ay ku beegsadeen marinka Gaza ee Falastiin tan iyo 7 Oktoobar oo xasuuqan ay ka bilaabeen Gaza waata intaasi ay noogu gudbaya wararkii ugu dambeeyay ee caalamka fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay aad nagu soo biirayso ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaallo caynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid tan ismaqalkeena xigana waxaan idin leeyahay sidaas ismaqal dambe oo aad u xiiso badan